بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نimo sabtiya kowda bisha August sanadka 2026 oo ku beegan 18ka bisha Safar sanadka 1448 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa kamid ah xaaladda colaadeed ee bariga dhexe ayaa gashay jawi cusub oo dagaal ballaaran iyadoo Trump amar uu ku bixiyay weerar cusub dhinaca kale Mareykanka iyo Israa'iil ayaa dejiyay qorshe weerar ballaaran oo lagu beegsanayo goobaha tamarta iyo kuwa dhaqaalaha ee dalka Iiraan golaha amniga qaranka Iiraan oo ka jawaabaya tilaabadan ayaa wacd ku maray in gobolku isla ololi doono isla markaasna ay xiri doonaan marina kale oo badeed gudaha Mareykanka xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga oo doonaya in la joojiyo maalgelinta dagaalka Iiraan xildhibaan Mareykan ah oo dhankiisa ku baaqay in dagaalka ay isaga baxaan gebi ahaanba ciidamada Mareykanka oo qiray awoodda la yaabka leh ee dagaal ee Iiraan ay la soo baxday xilli kaydka nidaamka gantaalada difaaca ee Mareykanka uu sii yaraanayo Xuutiyiinta oo warka soo saaray wararka sheegaya inay lacag ku soo rogeen maraakiibta gooshaysa Baabalmandab ciidanka Suudaan waxay sheegeen in askar saraakiil iyo gaadiid dagaal oo hor leh ay ka soo goosteen RSF iskuna dhiibeen taliskooda Kordofaanta waqooyi dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku hormaraynaa colaadda waddanka Suudaan iyadoo lagu soo waramayo in dagaaladii ugu dambeeyay si xun looga gacan sareeyay xogaga RSF ayaa haddana waxaa ku sii kordhay askarta iyo saraakiisha ka goosanaysa wararkii ugu dambeeyay ciidanka Suudaan ayaa sheegay in 45 xubnood oo ka tirsan ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF oo ay ku jiraan saraakiil sare ay isa soo dhiibeen iyaga iyo hubkoodii iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo ay wateen kadib dagaallo culus oo ka dhacay gobolka Kordofaanta waqooyi warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in isdiibistan ay timid kadib dagaallo ka dhacay magaalooyinka Jireje Umsiyala Bara iyo sidoo kale Qarfa kuwaasi oo ciidanka Suudaan ay sheegeen in ay ku ballaariyeen gacan ku haynta wadada istiraatiijiga ah ee isku xirta Al Ubayd iyo caasimadda Khartoum ciidanka Suudaan ayaa ku tilmaamay isdiibista xubnahani oo ay ku jiraan saraakiil sare inay calaamad u tahay wax ay ku tilmaameen bilowga burburka RSF ee jiida dagaalkaasi Al-Nur Al-Quba oo horay uga soo goostay RSF ayaa sheegay in xubnahan ay soo dhiibeen kadib guuldarrooyinkii dagaal ee ka dhacay Bara Umsiyala Jabra Sheikh iyo deegaano kale isagoo ugu baaqay ciidamada kale ee RSF inay hubka dhigaan dhanka kale ilo military oo ka tirsan ciidanka Suudaan ayaa sheegay inay heleen qalab ciidan oo la soo saaray sanadkan taas oo ay ku tilmaameen caddayn muujinaysa in RSF weli helayso sahay dibadeed inkastoo dagaaladu ay socdaan warka ayaa intaasi ku daraya in magaalada Bara iyo deegaanka Qarfa markii ugu horeysay ay tagtay warbaahinta caalamiga halkaasi oo lagu arkay burbur baahsan oo soo gaaray kaabayaasha iyo hay'adaha dawladda taasi oo sii xumaysay xaaladda bini'aadantinimo ciidanka Suudaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladooda military iyagoo qorsheynaya inay u gudbaan deegaanada Sudri iyo Al-Mazruuc kadib dhanka galbeedka waqooyiga oo dagaaladu si weyn looga jebiyay xogaga RSF
iyadoo la sheegaya haatan in xoogga la saarayo dhanka galbeedka ee Kordofan. waa tahay warkaasna intaa aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa xiisadaha ka aloosan gacanka cadmeed iyo baabalmadab iyo badda cas ee u dhaxeeya xuutiyiinta iyo Sacuudiga. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen ayaa si rasmi ah waxay u beeniyeen wararka sheegaya inay bilaabeen inay lacag ka qaadaan maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Bab al-Mandab, iyagoo caddeeyey in maritaanka marinka uu yahay weli mid bilaash ah. bayaan ay soo saartay xarunta isku dabaridka howlgallada bini'aadantinimada ee magaceeda loo soo gaabiyo HOCC oo maamusha isu socodka badda ee xuutiyiinta, ayaa lagu sheegay in maraakiibta aan ku jirin xayiraadda ay si nabad ah u mari karaan marinbiyoodka, isla markaasna aan wax lacag ah laga qaadayn. xaruntu waxay sidoo kale uga digtay shirkadaha maraakiibta inay iska indhatiraan cid kasta oo sheegta inay lacag ku qaadayso magaca xuutiyiinta, iyadoo sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sax ahayn. xuutiyiinta ayaa 20kii bishan Juulaay waxay ku dhawaaqeen xanibaad dhinaca badda ah oo ay ku beegsanayaan maraakiibta la xiriirta Sacuudiga, iyagoo ku tilmaamay tilaabadaasi jawaab ay ka bixinayaan sida ay sheegeen go'doomin iyo weeraro Sacuudiga muddo dheer uu ku hayay waddanka Yemen. dhinaca kale afayeenka militariga xuutiyiinta General Yahya Sariic ayaa daboolka ka qaaday in ciidamadoodu ay ku qasbeen 8 markab oo dagaal oo Sacuudiga uu leeyahay in ay dib u laabtaan, isagoo intaa ku daray in howlgalka lagu beegsanayo maraakiibta Sacuudiga uu sii socon doono. wuxuu sheegay in ciidamada xuutiyiintu ay gaari doonaan maraakiibta ay doonayaan in ay beegsadaan meel kasta oo ay awoodaan. wararkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in inkastoo xuutiyiintu ay diideen qorshe kasta oo lagu soo reegayo lacagaha maraakiibta laga qaado, haddana xiisadda ka taagan marinka Bab al-Mandab ayaa weli saamayn waxay ku leedahay isu socodka maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga, iyadoo shirkado badanna ay sii wadaan qiimaynta khataraha amni ee ka aloosan gobolka. hagaaga warkaasna intaa aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee colaadda Iiraan iyo Maraykanka. warar waaweyn ayaa soo kordhay saaka. Trump oo la sheegayo inuu amray weeraro ballaaran oo ka dhan ah Iiraan. dhinaca kale Maraykanka iyo Israa'iil ayaa lagu soo warramaya in ay dejiyeen qorshe weyn. Iiraan dhankeeda waxaa ka soo yeertay jawaab culus. waxaan kaloo idiin haynaa sheeko xiiso leh oo la xiriirta Maraykanka oo la yaaban awoodda Iiraan ay la soo baxday, gaar ahaan gantaal la sheegaya inuu yahay kan ugu halista badan ee Maraykanka walwalka iyo walbahaarka ay ka qabaan. muxuu yahay gantaalkaasi? sheeko xiiso leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan. gudaha Maraykankana waxaa ka soo baxaya codad kala duwan oo la xiriira dagaalkan in laga soo horjeedo. intaana u gudbin wararkaas iyo warar intaynu barnaamijka ku jirnay hadda soo dhacay aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan sabtida toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag. haatan waxaynu qooraansanaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan Maraykanka iyo Iiraan, iyadoo wararka qaarkoodna hadda ay soo dhacayaan. xaaladda ayaa u muuqata inay ka sii darayso, isla markaasna loo diyaar garoobayo dagaal ballaaran waqti dheerna qaadan kara. xagga Iiraan aynu ka hormarno. golaha amniga qaranka ee waddanka Iiraan ayaa soo saaray digniin cusub oo sare u qaadaysa xiisadda ka taagan gobolka, isagoo sheegay in haddii Maraykanku uu sii wado go'doominta badeed ee dekedaha koonfureed ee Iiraan, Tehraan ay sii adkayn doonto nibadda marinbiyoodka Hormuz, isla markaasna marino kale oo badeed ay sidoo kale xirmi karaan ama la xanibi karo. Iiraan
ma aysan magacaabin marin biyoodyada kale ee ay u jeedo inay xirayso ayeeshee waxaa la fahamsan yahay in marin biyoodka baabalmandab iyo gacanka cadmeed ay saamayn ku leeyihiin xoutiyiinta yaman oo xulafo dowla ah iiraan bayaan ka soo baxay golaha amniga qaranka iiraan oo laga sii daayey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in haddii maraykanku uu sii wado go'doominta badeed uu qalqal weyn ku imaan doono suuqa tamarta ee caalamka sidoo kale bayaanka ayaa xusay in codbixiyaasha maraykanka arrintaasi go'aamin doonaan iyadoo la tilmaamay in carqalad kasta oo ku timaada suuqa tamarta adduunka ay si toosa saamayn ugu yeelan doonto qiimaha tamarta gudaha waddanka maraykanka iiraan ayaa u muuqata inay doonayso inay xaaladda cirka ku shareerto waxaana lagu soo warramayaa in ay ka jawaabayso tillaabo kasta oo maraykanku uu qaado arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay soo tarayaan hadalhaynta ku saabsan olole cusub oo maraykanka iyo israa'iil ku beegsan karaan kaabayaasha tamarta ee waddanka iiraan dhanka kale wargeyska wall street journal ee ka soo baxa maraykanka ayaa isagoo soo xiganaya saraakiil maraykan ah wuxuu sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu amar ku bixiyey mawjad cusub oo weerar ah oo lagu qaadayo iiraan kuwaasi oo laga gol leeyahay in lagu qasbo jamhuuriyadda islaamiga inay isi dhiibto warbixintu waxay sheegtay in duqimaha la filayo inay socdaan maalmo dhowr ah isla markaasna ay bilaaban karaan maalmo gudahood ama saacado gudahood dhanka kale telefishinka CBS News ee maraykanka laga leeyahay ayaa isagoo soo xiganaya ilo xogogaala waxa uu sheegay in maraykanka iyo israa'iil ay qorsheynayaan olole duqayn ah oo lagu baagsanayo xarumaha tamarta ee iiraan iyadoo weeraraduna dhici karaan inta lagu jiro maalmahan warbixinta ayaa sheegaysa in labada dhinac ay ka wada hadleen in la soo gabagabeeyo weerarada ka hor furitaanka suuqyada maaliyadda ee maalinta isniinta sababo la xiriira walaac laga qabo saamaynta dhaqaale ee ka dhalan karta tilaabadaasi inkastoo weli aan la isku raacin wakhtiga rasmiga ah ee lagu soo afjari karo howlgalka CBS ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in madaxweyne Trump uusan weli bixin amar kama dambaysa oo la xiriira weerarada iyadoo qorshaha howlgalka looga hadlay shir golaha wasiirada maraykanku shalay ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee Camp David dhankiisa telefishinka CNN ee maraykanka laga leeyahay ayaa soo xigtay saraakiil maraykan ah oo sheegay in baaxadda saxda ah ee weerarada iyo bartilmaameedyada suurtagalka ah ee maraykanku ku beegsan kara gudaha iiraan aysan weli caddayn saraakiisha waxay sheegeen inay jirto suurtagalnimada in weerarada la baajiyo hase yeeshee qorshayaasha hadda jira ayaa waxaa ka mid ah weeraro lagu qaadayo xarumaha tamarta ee iiraan war kale oo arrimaha la xiriira shabakadda wararka Axios ee maraykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah saraakiisha maraykanku ay la yaaban yihiin sida iiraan ay ugu diyaarsan tahay inay kordhiso dagaalka sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in iiraaniyiintu ay muujiyeen dhaqan aad u adag oo dagaal ballaaran oo weliba muddooyinkii ugu dambeeyey la dareemayey sarkaalka ayaa intaasi ku daray in iiraan ay fulisay weerar dheeraad ah oo lagu beegsaday ciidamada maraykanka ee gobolka kuwaasi oo daba socday weerarkii lama filaanka ahaa ee arbacadii iiraan ay ku tiigsatay saldhig military oo maraykanku uu ku leeyahay waddanka Jordan isla wararkan wargeyska Wall Street Journal ayaa waxa uu soo xigtay saraakiil maraykan ah oo sheegaya in weerarada iiraan ay sii noqonayaan kuwa aad u casriya gaar ahaan gantaalka la yiraahdo Khaybar Shankin kaas oo la sheegayo in uu noqday gantaal qatartiisa ay sii kordhayso isla markaasna ciidamada maraykanku wali weyn ay ka qabaan dhankiisa telefishinka Fox News ee maraykanka laga leeyahay ayaa isagoo soo xiganaya qiyaasa ay samaysay xarunta daraasaadka istiraatiijiga ah ee caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabayo CSIS waxay sheegtay in kaydka gantaalada difaaca gaar ahaan nooca loo yaqaano THAAD uu hoos ugu dhacay 278 xabbo oo keliya halkii dagaalka ka hor u ahaa 452 gantaal
sidoo kale waxaa la sheegay in kaydka gantaalada nuuca loo yaqaano Patriot uu hoos uga soo dhacay 2,300 oo gantaal oo Maraykanku ay haysteen dagaalka ka hor imikana waxa haray baa la yiri wax ka yar 827 gantaal wararka Maraykanka ayna ku sii soconee xildhibaan Thomas Masai oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee dalka Maraykanka isla markaasna si joogto ah u dhariira siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ayaa ugu baaqay maamulka inuu isaga baxo dagaalka Iran Masai ayaa bartiisa bulshada internetka wuxuu ku qoray fariintan wuxuuna yiri Iran waxay sugaysaa ugu yaraan 3 arrimood ka hor inta aysan tanaasulin ama heshiis galin waa tan koowaad in Maraykanku ay ka dhamaadaan kaydka shidaalka istiraatiijiga 2 in gobolka uu ka dhamaado difaaca lidka gantaalada ama in xisbiga jamhuuriga uu lumiyo aqlabiyadda gudaha Maraykanka waxa intaasi ku daray waa inaan isaga baxnaa dagaalka ka hor inta aan mid ka mid ah arrimahaasi dhicin war kale oo isla arrintan la xiriira xildhibaan John Larson oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa soo bandhigay hindise qaanuun lagu joojinayo maalgelinta howlgalka military ee Trump dagaalka uu ka wado Iran Larson ayaa ku eedeeyay maamulka Trump inuu iska indha tiray codadka Koongareeska halka uu sii kordhiyay qasaaraha ciidanka Maraykanka iyo qiimaha shidaalka fariin uu ku daabacay bartiisa bulshada internetka waxa uu ku yiri John Larson askarteena ayaa la dilayaa Iran ayaana dilaysa qiimaha shidaalkuna waa sii kacaya Koongareeskuna ma sii eegan karo arrintan waa intaasi ku daray waxaan 2 jeer u codaynay in la soo afjaro dagaalkan qasaaraha badan waxa la joogaa waqtigii qaanuunka la dhaqan gelin lahaa hindise sharciyeedkaygu wuxuu joojinayaa dhammaan maalgelinta dagaalka sharci darrada ee Trump uu ka wado Iran وهجاج ورك أسرع وورك يقدم بعي لك بريكنك أينو أجنو أنت إنه برنامج كوتشرني ورا حد صور دعي قارهان مركب لجوه ري لك سيو إن بريكن ده هاي أدى أمنيكا بدها UK لجلي هي بقى على الله سو جابيو UKMTO أي شيء إن مركب شدال كقاعدة لجوه ري مال قياستي كوبي 8 مايل بدد وغوي بريكا جابعن ديجان كلمة دلك سي عمان weerarka ayaa sababay waxyeello soo gaartay qolka matoorka taasoo keentay in markabka uusan awoodin inuu sii wato socodkiisa UKMTO ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xeebaha ee gobolka la wargeliyay isla markaasna ay socdaan baaritaan ku saabsan dhacdadan hay'addu waxay sidoo kale xaqiijisay inaan la soo sheegin wax dhimasho ama dhaawac oo ka dhashay dhacdadaasi isla markaasna aan wax saameyn deegaanka la diiwaan gelin iyadoo markabka imika ku sugan yahay aagaasi waxaana loogu baaqay maraakiibta gooshaysa ama ka agdhow goobahaasi inay taxadar dheeraad ah muujiyaan isla markaasna soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo وهجاج ورك وجودن بيا حد صار عيا سيدا كلا وحى كمله دنك الكويت أيها حل شيء يعني إن نظامية الدفاع وضد كاسية أي شيء يعني إن أي لا تعاليان ديورده درامة وضد كاسي لقصة وين وحنا هودا لقى مقلي قرحية كلا الدول ورجع سيدا كلا وحى كمله إن تلس كدحى عيدا كأمريكان كإلو يقان سينكم أي سيدا تلفزيون CNN وتبينيه وحى يسكت ديارنا يعني إلا بلاريو dagaalkan iyadoo xiisadda cirkuna wali cirka ay ku shareeran tahay waa xiisaddu cirka ay ku laaran tahay waa hagaag aynu wararka ugu dambeeya sidoo kale eegno waxa kale oo wararka hadda soo dhacaya kamida gudoomiyaha baarlamaanka Iran oo isaguna sheegaya in Iran ay isku diyaarisay dagaal muddo dheer soconaya sida hadalka uu yiri wararkan oo faahfaahsan iyo wixii soo kordha barnaamijka wararka maanta oo saacada kadib soo gali doona ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh